بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وقتكنا هو وقت الدم ودي طبقي هبيني ما يمارسها warka badan aan halkan ka sheegaynaa mana malaha yuhuud wax badan yeeli maayo kelmadda laygu qoray waxay ku saabsan tahay asbaabi dacfi almuslimiin waxyaabaha keenay muslimka tamar darradiisa maanta markaynu eegno muslim oo dhan haddaynu eegno iyo haddaynu carab oo qura eegno carabi waa 300 milyan yuhuudda dunida ku noolina waa 15 milyan waxa Israa'iil joogaya waxa ka maqan marka la isku daro macnaheedu waxa weeyaan boqolkii carabeed ba 5 yuhuudeed ba ku beegmaya waa 5% bay ka yihiin haddii muslim weyne loo eegana muslimku tirooyinka ugu yar ay sheegaan haddaynu qaadano oo idhaahno waa bilyan iyo badh waa 1% bay yuhuudi markaa ka tahay boqolkii muslimaba hal baa ku beegmaya reer banu israa'iila idan 15 milyan bay ka cabanayaan 2 bilyan oo bini aadam waa waxaad u cajiiba 2 bilyan oo bini aadam ayaa 15 milyan ka cabanaya waa qadiyad runtii aad u weyn inkastoo cali diiriye meel la odhan jiray ninkii soomaaliyeed ee abwaanka ahaa toddobaatanaadkii dagaaladii markay dhaceen muxuu lahaa israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego birta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiya rag baa biirinayo baarka u fidhaaye barqa laguma gaadhin buu lahaa markaa wuxuu tilmaamaya inay 15 kan ahayd dad badan oo ka dambeeya inay jiraan si kastaba ha noqoto taariikhda islaamiga markaanu dib ugu noqono maaha markii koowaad ee muslimiintu ay dacfi dareemaan haddaynu eegno cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqti laga xoog badnaa baa jiray haddana waqti yaroo kooban bay labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa dhowr iyo 10 dagaal bay la galeen baan filayaa ay kaga takhalluseen taariikhii ka dambeeyay haddaynu eegnana muslimiintu waqtiyo badan oo dacfi ay dareemeen baa jira waxaa ka mid ah waqtigii mongolian isku qabsadeen caalamulislaami intiisa ugu badan waxaa ka mid ah waqtigii ayaama undulus markii laga soo saaray Spain iyo Portuguese iyo dhulkaasi ilaa Faransiiska dacalkiisa ama Paris dacalkeeda aan idhaahdo macrakatul bilaad iyo muslimiintu dhulkii ay qabsadeen dib looga soo wada saaray waxaa ka mid ah bayt al-maqdiska laftiisa waqtigii ay qabsadeen ama shaam qaybo badan oo ka mid ay qabsadeen oo degeen crusaderskii ama kristankii yurub ka soo duulimaad tegay waxaasoo dhan markaynu isku soo darro taariikhda ugu kuma aha in ama bayt al-maqdis la qabsado ama dhul muslimiin la qabsado ama muslim la jabiyo laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan mar kasta oo la qabsanayay maxay ku sugnaayeen mar kastoo muslimiintu ay jabeen xaalkoodu siduu ahaa mar kastoo ay guulaysanayeen maxay ku guulaysanayeen qadiyada u baahan in dib taariikhda looga baadho ama dib loo eego waa kaasi inta badan marka taariikhda laga warramayo waxna waxay ku tilmaamaan inay yihiin asbaab daakhiliya bulshada dhexdeeda wax ka jiro oo jabku ka yimi waxna waxay ku tilmaamaan asbaab khaarijiya dabadda wax kaaga yimi laakiin waxay yidhaahdaan inta ugu badan leh asbaabta khaarijiga ee la sheegaa waa nataa'ija ma aha sababta xaqiiqiga ah waana sida ay inta badan sharxayso suuratu aali cimraan qisatu uxud marka ilaahay uu ka warramayo laguma cilaynin khaalid baa xariif ahaa ama dagaalyahan ahaa ama godololadiina helay ama waa la idinka tira waxaasoo dhan laguma cilaynin iyadoo ay jirto laakiin waxaa la tilmaamay waxani waa nataa'ije asalku inuu ahaa ضعفي مسلم ككل عجودهيس ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين آيات تربضا
ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sharxaya asbaabtii daakhiliga ahayd ee muslimka ku dhacday awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wuxuu tilmaamayaa sababaha xaqiiqiga ee jabka keena inay yihiin sababo daakhiliya walidalik qaacida caama baa qur-aanka ku taalloo tilmaamaysa in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim duulla waxay ku sugan yihiin hadday badhaadho ku jiraan iyo hadday dhibi haysataba lagama bedelo inay iyagu bedelaan mooyaane cama fi lanfus waxa naftooda ku jira inay wax ka bedelaan mooyaane waxaan odhan karnaa markaa sababtoo dhan waa la ijmaalin karaa hal midoo qura lagu tilmaami karaa halkaa mida waa la tafsiilin karaa waa la balballaadhin karaa oo waxyaabaha ay sheegayso midkaa guud waa la tafsiilin karaa waa la sheegi karaa sababtu waa hal mida marka hore waa ama diinka tegis diintoo la ihmaaliyo diintoo jaahil laga noqdo diintoo aan lagaga dhaqmin في الأمور الشخصية أما في الأمور الاجتماعية والسياسية مدة دونتان نقطة ويا إلهي بان قرآن كوحي ونوغوشا جاي بلن وقاضي هدي دين تسيدا يتحي لوغو رقمه ما هسيدا دادقو فهم سنت وسيدا يضطي دينهم الذي ارتضى سيدا ألا ورالي وغيه هدي لوغو رقمه إلهي بان بلن قاضي نقول لهليو إلهي قرآن كوحي ونوغوشا جاي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وبلنا له إلهنا وحلي وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي وحو بلن قاضي وددك مسلمين تاو يبوهي هدي لغا هلو إيمان كي لو باهنا لغا هلا عمل وناكسن عمل كي أمدي السيئة صالحة لو باهنا إن دول كان إلهي سبحانه وتعالى يغا خليفة قدقايو سيدي دادك يغا كوهر رييبا خليفة لوغا قدقاي إيين إلهي دين تودا مكان سينا يو دينهم الذي ارتضى لهم دينتي الله رالي ونقضي ما هالدينتن أنه نقو فسر كذا وقاضناي مسبحية السجاية دينا يتهاي وهداد وردك بطسطو مساجد كاد قاشين تقول ليش نسمعها وردك هي مسبحة هي صلاة هي كوكاني ووحلو باهي هي لكن وأنتم لأعلون إن كنتم مؤمنين سيدا وقال إيمانكو كيلو باهنا هدو نقضه ومدى مسلمين تا إيمانك هيستا كيلا فراي هدو نقضه وإلهي وحلي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين قرب إلهي تلمامي أفكنك لا إلهي الرسول بانو رمينو وحبانو أطيعنا لكن كتشيسن يدين تو شهدين إياه warkuwaasi mu'min ma haba ilaahay ku tilmaama idan hadduu iimaanku kii dhabtaa uu yahay waxa ka dhasha camal saalixa oo isna camalkii dhabtee shareecadu ay sheegaysaya marka waxaynu odhan karnaa mushkiladeennoo dhamme haddaynu duuduubno tafaasiishu ha dambayso haddaynu duuduubno waa hal mida waa diin la'aan waa dacfi diinteenna ku jira وكل قلان دين تين كل رقم ويني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود يا إمام أحمد بورين أيام بمجموع طرق علماء لا صحيح إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وحنا بقول عليه الصلاة والسلام هذا عينة كل قنتان عينة هو نوع من الربا والربا الله حيل هذا يستي أنك ترى هذا قاري جيبي أو $1 يقصي دبتنا يجيسو أو سداد بقول يسي
markaa meeshu waxa weeyaan 800 labaad qaadatay kunna waa lagaa rabaa 800 oo 200 oo ribi saarantay weeyaan haddaa ciinada ku dhaqantaan buu nabigu tilmaamaya oo looda dabada qabsataan oo beeraha ku dhigtaan oo ilaahay jihaadkiisa ka tagtaan ilaahay wuxuu idinku sallid ka kacaynin ilaa iyo goorma xataa tarjicu ilaa diinikum ilaa iyo diintiina u soo noqotaan baa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan waxaan leenahay aslu ducf aw idacf muslimiinta haya marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo